kulan ay maanta isugu yimaadeen magaalada Burco odayaal iyo waxgarad ka soo jeeda gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxay kaga hadleen maamul sameynta gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe waxayna xukuumadda federaalka Soomaaliya ugu baaqeen inay dhex ka noqoto shirka maamul sameynta goboladaasi ayaguna ka digeen nidaamka lagu dhago Soomaaliya isla markaana sheegay in nidaamka 4.5 uu cadaalad darro yahay waxay sidoo kale ka digeen dhulboobka ka socda deegaano ay iyagu leeyihiin taasi oo ay sheegeen in xukuumadda Soomaaliya ku lug leedahay isla markaana ay xaq qabeel ahaan ay u leeyihiin ay baalmarinayso waxaana kulankani ka hadlay caaqil Iid Nuur Qaasim gudoomiye ku-xigeenka beesha ee gobolka Togdheer Maxamed Khaliif iyo xubno kale waxaan hadaladoodii ka mid ahaa jiraayad waxaan u qabanay maamul sameynta gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe taas oo aan ku doonayno awood qaybsiyo xaqayna ah inaan helno ma doonayno waxaan xaqayna ahayn laakiin waxaan u taaganahay xaqayna wasaaradda arrimaha gudaha oo shaqadaas qaabilsan waxaan u sheegaynaa inaan xaqayna ka doonayno dhulboobka ka socdo gobolka Shabeellaha Dhexe dadka beeraleyda ah oo dhulkooda loo soo xaqaltaagay in laga waantoobo dhulnikiisa baa iska leh waanu garahaynaa Soomaaliya si kala degtiisay dhul u kala leedahay marka dhulboobka foosho xun ee hunguri xumada ah dadka wato waa wax laga soo ilbaxay waxaan u sheegaynaa inay ka ilbaxaan Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan qaasiyan Shabeellaha Dhexe caasimadiisa Jowhar taasoo ah tan aynu ka soo jeedno waxaan doonaynaa inaan ka helno saamiga aynu ku leenahay gobolka iyagaas waxaanu ka codsanaynaa federaalka uu madaxweynaha u yahay Xasan Sheekh Maxamuud in wax allaali wax xuquuqdeeda aynu ku leenahay aynu ka helno marka labaad waxaan aan u jeedinaynaa salaan iyo kalgacayl ummadda Soomaaliland aan ku dhex noolnahay marka labaad waxaan u sheegaynaa madaxweynaha federaalka Xasan Sheekh Maxamuud waxaan kaloon baaqan u diraynaa hay'adda wasaaraha Soomaaliya marka saddexaad waxaan baaq u diraynaa gudoomiyaha baarlamaanka anagu waxaanu nahay dad soo jiriyo wiligooda la aqoonsanayo la yaqaano waxaan marka horeba diidanahay 1.5 kan la sheegay 1.5 nin rag in naag lagu magacaabo horta ma aha madaxdu waxaan leenahay marada way ka dhacday madaxda Soomaaliya marada way ka dhacday aan leenahay maradooda ha qaataano waa ceebaysan yihiin aan leenahay dad diinta yaqaano waaye dad muslim ah waaye in mar walba lugta madax naga la saaro ma suurta galayso mana yeelayna taas shirka halka aan u fadhino waxay tahay maamul goboleedka oo imika la kala qaybsanayo inaanu qaybsashaalkiisa aan ka wada hadalno sidaan u nahay anaga baahweynta beelaha Jareerweyne oo ka soo jeeda gobolka Shabeellaha Dhexe waxaan halkan u taaganahay inaan xaqaynaan aan ka hadalno oo wixii xaq aan u leenahay aan ka sheegno halka idaacadaha madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya waxaan u sheegayaa inuu xaqa ay qof walba xaq uu leeyahay inuusan difirin oo san ka gaarmarin waxaan kaloon ka hadlayaa 2016 maamul oo sameeyska la kala qaybsanayo in nin walba saamiga uu ku leeyahay inuu qaato lagana daayo 4.5 ka imika mar walba laga hadlayo oo TV-ga laga sheegayo wax 4.5 la yiraahdo ma jiro nin walba wixii xaq uu leeyahay waa inuu helaa waxay tahay anagu mid aan ka soo horjeedo dadkii minority ka hayna majority baan ka dhigaynaa dadkii majority hayna minority ayaan ka dhigan taasi mid aan yeelino haddaan u nahay bahaweynta lixdooda ee shidlay gobolka Shabeellaha Dhexe ka soo jeedo taasi horta ma ahan tan labaad waxaan ka hadlaynaa dhul beereedka bahaweynta lixdooda ee shidlay ku leedahay gobolka Shabeellaha Dhexe dabriyaha dab waxaan hadalnaa ilaa uu ka hadla taliyaha ciidamada booliska ee gobolka Shabeellaha Dhexe uu yiri dhulkii hoode waxa iskale maxaa la yiraahdaa dawladda qaranka ayaa iskale dhul qaran meesha meelo waxa leen mas'uuliyad tahay hadalkaas ka laab ayaan u leenahay midda saddexaad waxaan baaq balaaran u jeedinaa dhalinyarta bahaweynta lixdooda ee shidlay ee ku nool adduunyada dacaladeeda meel walba inay u soo istaagaan dhulkooda maamul sameyn walba kaalin ayuu leeyahay oo oran waa soo baxday Boosaaso joogta Soomaaliland baa joogta dhulku waxba kama qaban kartid warnin walba kaalin buu leeyahay kaalintaadii u soo istaag sidaan u difaacno dhulka ay gabar iyo wiil intaba waxaan leeyahay walaalahayga oo Soomaaliyeed oo ku nool Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe walaalkaaga hadda loo dulmaayo cudwaan hadduu haysto waa inaad u helayso xaq baad u leedahay Soomaalida oo ku nool Hiiraan iyo madaxweynaha Soomaaliyeed Xasan Sheekh Maxamuud armahan ka socda gobolka Jowhar Shabeellaha Dhexe armahaas ha ka waantoobo waxana ha ka qabto Shaafici Maxamed Ibraahim
telefishinka Somali News gudaha magaalada Burco.